fiidnimo wanaagsan saaxiibayaal meel walba maqalkayga naga soo gaaraya waa barnaamijkeennii codka oblasinbaaye soomaali alaba barnaamijkan waxaan kaga hadlalnaa arrimaha ganacsiga khaasatan onlineka iyo faa'iidadiisa waa qaybtii tobnaad ee season 2 waxaad waraysigan iyo waraysyadii hore aad ka heli kartaan kanaalka maariya xuseen sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan adeega bodkastiga waxaa ila joogta caawa sahre xuseen oo ah hooyo soomaaliyeed oo aad u dadaal badan guulo badanna ka xaqiijisay onlineka dhexdiisa weliba muddo kooban sahra waxay ka mid tahay tiimka Oblas Global waana tababarayaasha ugu saameynta leh shirkadda Oblas Global sahra ayaa waqti kooban ina siisay siday inooga faa'iideyso fursadda haleeshay ugu horreyn ku soo dhawo walaasha codka Oblasinbaaye Soomaali maasha Allah aad iyo aad baan mahadsantahay walaashii Maariya waana dhawahay mar labaad waan ku soo dhaweynaynaa aniga iyo tiimka igu xiranba dad badan waxay isweydiinayaan inay sahra wax ka ogaadaan sahra waa tuma maadaama aniga iyo tiimkuba aan si wanaagsan ku garanayno maasha Allah mar labaad aad iyo aad baan mahadsantahay walaashii Maariya sidoo kale dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee dunida dacaladiisa inaga dhageysan doonto ama haddaba dhageysanaysa waxaan idin leeyahay adunkuna aad baad u mahadsantihiin aniga magacayga sida lagu xusayba meesha Zahra Xuseen baa la yiraahdaa waxaan joogaa wadanka Mareykanka hooyo ayaan ahay xaasna waan ahay caruur haysata shirkadeena qaaliga ah ee Oblas Global 2020kii qayb ka noqotay markii adduunku kala xirmay dhacay cudurkii Ilaahay naga dulqaaday adduunkaba kala xiray ee COVID-19 loo baxshay marka muddan joogay anigu Mareykanka meelo badan baan ka shaqeeyay anigu waxbarashada aan meelo badan baan ka kala gaaray balse markaan arkay shirkadda tan oo waliba iyaduna mid ugu horeysay oo online ah oo aan qayb ka noqdo waxaan u arkay fursad qaali inay tahay oo aan uga faa'iideyn karo bulshada Soomaaliyeed sidaas aan ugu dhiiriday shirkadda tan qaaliga ah waa ka wada sheekaysan doonaa fursadda qaaliga ee dhex taalla onlineka sidoo kalena qof walba siduu uga faa'iideysan karo meel walba uu joogo maadaama Oblas Global ay ka mid tahay shirkadaha ugu faa'iideyn ee ku jira onlineka uguna saameynta badan sawir guud nooga bixi company Oblas Global maasha Allah mar labaad walaashii Maariya aad iyo aad baad u mahadsantahay yes fursadan qaaliga ah waan uga faa'iideyn karaa walaalaha shirkadeena Oblas Global waa shirkad caalami ah oo adduunka dacaladiisa ka hawlgasha 200 wadan iyo nawaaxigiisa ayay toos u geysaa alaabteeda iyo servicekeedaba waxaa la aasaasay oo Canada laga aasaasay 2005tii waana shirkad Canadian ah waxyaabaha ay sameysana ay yihiin waxyaabo dadku ay markasta u baahan yihiin marka shirkadda waxaa laga leeyahay Oblas Global Canada laakiin xarumo badan ayay adduunka dacaladiisa ay ku leedahay oo ay ka mid tahay Malaysia, Philippines, China, India, Singapore iyo meelo badan oo soo socda Indonesia iyo North Korea waa soo socda hadii ilaahay qof walba wuxuu danaynayaa inuu ka faa'iideysto suuqa onlineka sidee looga faa'iideysan karaa waqtigan hadda la joogo maadaama horumarka onlineku aad u tiro batay maasha Allah waa su'aal qaali ah weeyaan dadku isoo weydiiyaan siiba markii uusan qofku uusan garanaynin onlineka waxa laga yaabaa inay ku culus tahay ama uu arko wax culus laakiin wax culus ma aha waaye maanta adduunkiiba isugu biyashubtay onlineka aniga hadda idin la hadlahay ee 2 sano xoogaa shirkadda ku jira weliga onlineka ma ganacsan markaan bilaabahayna cabsidaas waa igu jirtay laakiin cabsidaas waxa ka tirhaya number 1 horta adduunkii oo maanta isugu biyashubtayba onlineka wax kasta hadda onlineka laga dalbanayo waxa inta ku dheer oo shirkadda aad ka helaysaa adeegyo bilaash ah oo lagu barahayo oo tababaro ah oo waliba luqadeena Soomaaliga ku baxaya ayaad helaysaa marka hab yaraatee wax culaab ah oo qofkii isdhahaya hadda abalowdid halka uga imaan kara malahan team balaaran ilaa 2000 hadda teamkeenu waa marhaya ayaanu leenahay Soomaali baa wixii lagu sharxayaa usbuuci 4 casho ayaanu sharaxnaa alaabta iyo ganacsiga wax oo dhan shirkadda waxaa fadhiya 2 qof oo Soomaali ah oo luqadda Ingiriiskana garanaya luqadda Soomaaligana turjumaan ah waana shirkadda ugu horeysay ee caalami ah ee haysata turjumaan Soomaali ah maadaama aanu qurbaha muddo joogay meelo badan aan ka soo hawlgalay weli ma arkinin shirkad caalami ah oo laga helayo turjumaan Soomaali ah marka qofkii cabsi ay ku jirtay cabsida halka ayuu iska dhigayaa
taleefankaad kusoo wacaysaa alaabtaada ku orgaraysan kartaa ku dalban kartaa walaalahaasaana kaa caawinahaya waan kugu soo cesha baay sahra sidaad sheegtay waxaa jira tababaro caalami ah oo la bixiyo oo ay shirkaddu ku bixiso si free ah tababarada ma waxa la siiyaa dad khaasa mise qof walba oo ka faa'iideysanaya ayaa tababarkaa la siin karaa ama looga faa'iideyn karaa maasha allah su-aal aad u wanaagsan cid kasta ayay tababarkan u furan yahay laakiin markii la rabo in toos loo gudagalo habkii aad dhaqaalaha uga samayn lahayd iyo markuu qofku uu shirkadda soo gala ayaa si dhiib ah ama qoto dheer uu heli karaa marka kore laakiin aqoon guud qofku ayuu ka samaysan karaa oo go'aan uu ka gaari karaa marka cid kastay u furan tahay annaga keena khaaska Soomaaliga maalmaha aanu sharaxna waxaa ka mid ah maanta oo kale oo sabti oo hadda dhow aanu ka soo baxnay 8 fiidnimo markay Soomaaliya ay ka tahay iyo maalin kasta oo Jimco maalin kasta oo Talaada iyo maalin kasta oo Arbaca marka cid kastay u furan tahay tababaradeena Khamiista iyo waxaanu sameynaa iyo Axadda 8 fiidnimo dhinaca bariga Soomaaliya Afrika wali way u furan tahay martida waa ku soo casuumnaa way dhageystaan inta badan martideena markay dhageysato qayb ay hadhow ka noqdaan shirkadda laakiin markaad soo gashid ayaa si qurux badan u sii ogaanaysaa habka aad dhaqaalaha uga sameynaysid iyo wax oo dhan dad badan waxay daneynayaan inay wax ka ogaadaan goormaad ku soo biirtay kambaniga Oblas Global maasha allah waxaan aniga shirkaddan qayb ka noqday 2020kii markii adduunkuba inta kala xirmay dadkii shaqooyinka haystay ay shaqooyinkoodii ayagu ka tageen ama choice ay uga tageen ayagoo macnaheedu xor ah ama ayba shirkadiiba ay xirantayba markaasaan anigu aan soo galay kambaniga waayo wuxuu ahaa kambani kobcahaya sanadkuna wuxuu ahaa 2020 marka iyada ah online on weligay ka shaqaysan baan ku dhiirada marka iyada ah maadaama aan arkay fursad inay tahay macnaheedu furan inkastoo aniga dhinaca caafimaadka marka horeeto alaabta aanu shirkadda ku hayno qayb ka mid ah caafimaad ahaan aan marka hore raadinayo u soo galay haddana waxaan arkay fursad inay halkan taalo on waliba markaa kama aan fikirin aniga naftayda waxaan islahaa bulshada Soomaalida ayaa kaaga baahi badan si u gaarsiin kartaa saasan markuu soo galay 2020kii ayaan soo galay Agosto 6deedii bishii 8aad ayaan u dabaaldegayay labadaydii sano oo maasha Allah aad u maleynayay inaan 5 sano ku jiro macnaheedu sidaan u kobcay shakhsiyan anigu wax soo barto iskuul ka soo baxay haddana waxaan ka bartay shirkadda tan waxaan mudaabanaan weli wax soo baranba marka nafsiyan baan ka u kobca 2020kii ayaan ku soo biiray shirkadda qaaliga sidaan ogahay online wuxuu u baahan yahay waqti in la siiyo iyo dadaal badan adoo hooyaa sidee bay kugu suurta gashay inaad ka ganacsato ilaa 204 wadan maasha Allah waa su'aal aad u wanaagsan waa su'aashii anigu aan qabay intaan shirkadda soo galin oo isdhahayay hooyaa tahay sidee baad online uga shaqaysanaysaa cabsidaas way igu jirtay laakiin cabsidaas waxaan uga baxay shirkadda ayaa waxay leedahay tababaro aad u badan oo ku rumaynaya riyadaada qofku waa inuu horta hami leeyahay haddaad hami leedahay waliba halhayska shirkadda wuxuu yahay haddaad hami adigu hayso annaguna habkii baan kuu haynaa habkii way tuseen qofku hadduu ka go'ayo inuu wax barto wax kasta uu baran karaa kaliya waxaad u baahan tahay waxa weeyaan taleefon inaad haysatid maantana dee taleefonka cid kastaaba wadata meel kastay dunida ka joogaan taleefonkayga aan markasta isticmaalahayay ee waqtigii iga baxayay ayaan hadda u bedelay inuu asagu noqdo mid aan ka faa'iideysto marka waxaanu inta badan dhahnaa arkay markaanu sharxayna ganacsiga online-ka ma adigu ku isticmaalaa mise adaa isticmaala waxaan ogaaday 2020kii wixii ka horreeyay inuu asagu isticmaalhayay laakiin hadda anu aan isticmaalo marka kaliya waxaad u baahan tahay inaad haysatid taleefon wax luuqadoo ku xiraya male inta kale tababarada oo iska daba dhacaya haddaad adigu arday aad noqonaysid wanaagsan oo macnaheedu wax baranhaya waa fursad qaali ah marka wax macnaheedu ku xanibi kara ma lahan online-ku wax badan ayuu inoo fududeeyey sida inuu dhaqaale ka samayn karno wax ka baran karno meel walba aynu joogno maadaama Oblas Global ay ka mid tahay shirkadaha dhaqaalaha laga samayn karo waqtigan hadda jira dad badan oo Soomaaliyeedna ay dhaqaale ka sameeyeen dhaqaale intee leeg ayaa laga samayn karaa Oblas Global maasha Allah waa su'aal aad u wanaagsan waxaan u soo wada galnay horta dhaqaalahaas ayuu ahaa inaanu ka sameeyno marka laga reebo caafimaadka iyo waxyaabaha alaabta laga helayo ee wanaagsan dhaqaaluhu horta wuxuu ku xiran yahay qof walba iyo dadaalkiisa waa shaqo online-ka inta badan dadku shaqo uma arkaan laakiin waa shaqo qofka marka imisa
adigu aad time gelin kartaa weeyaan hadday adiga kaa go-an tahay qof walba inta asagu uu geliyo ka helaya qofkii ku talagalay inuu bishaa ka sameeyo $100 qofkii $5,000 ka sameeyo raba inuu ka sameeyo intaba waanu haynaa waayo annaga waxaa jira wax compensation balan la yiraahdo oo aanu leenahay oo dadka tusi karno tusaale haddaan ku siiyo compensation kaas ha ku shaqeeyo qofku hadduu qof kaleeto uu soo casumo uu shaqo u abuuro oo shirkadda markaa dartii uu qofkaasi uu qayb uga noqdo shirkadda ha alaa qof $300 oo Canadian ayuu ka sameyn karaa marka labada nooc aad uga sameyn karto waxay tahay midda alaabta aad ka helaysid oo inta kartaa saaran karto maadaama adigu jumla aad ku helayso hadhowna tafaariiq aad ku gadanayso oo laga yaabo halkii shay kaliya $20 inaad ka faa'iidid iyo midda dhinaca tiimka kula shaqeynaya oo tiimka markaad adigu sabab ugu noqoto inaad u abuurto dadweynaha shaqo inay ka shaqeystaan halkaan oo dhaqaale ka sameeyaan calaa qof laba dukaan baa jira lagu soo kala galay dukaanka ugu sarreeya $300 oo Canadian ku soo celinayaa oo aad mahadsantahay uu ku leeyahay oo dalaalnimo camal ah shirkaddan tusaale marka 4 qof hadaad usbuucaas caawisid ama bishaas waxaad helaysaa $1,200 marka qofkii ku xiran tahay qofku inuu sameeynaya asagu waa inuu soo qorto listigiisa oo markaasna annaguna waxaan tusaynaa habka u mari lahaa iyo sidoo u sameyn lahaa dhaqaalaha sidaan ogahay wax walba waxay leeyihiin challenge ama caqabad ma jiraan wax caqabada oo ka horyimi markay hawshu bilow ku ahayd ما شاء الله عقبضه wax kasta horta la bilaabo saad sheegtay ba walaal Maariya caqabad way leeyihiin ama ganacsi ha noqdo ama qofku wax barashaha bilaabayo ama inkee nolosha guurka markuu qofku bilaabay caqabad bay leedahay wax kasta caqabad waa leeyihiin caqabadaha ugu horeeyo dadka la soo darsi karo aniga la soo darsay waxay tahay in aan markii hore isdhahayay maadaama family balaarna waan ka dhashay asxaab badanna waan lahaa waxaan isdhahayay marka ganacsigan dadka ugu horeeyo uga faa'iideyn doonto waa labadooda marka hamiga qofka xoogaa waa laga yaabaa inuu niyad jabo marka dadka intaad u soo bandhigto adigu alaabtii waxtarkeeda aad arkaysid ama ganacsiga dhaqaalaha laga sameyn karo aad arkaysid dadkiina aysan kula fahmaynin niyad jab halka waa kaaga imaan karaa waxa kaloo niyad jab kaaga imaan karaa in waqti badan intaad geliso hadiiba aadan helin isla markii dadku qof baa nasiib u leh ganacsiga oo markuu maanta soo galo bariba guula la taaban kara ka gaari kara qofna mudday ku qaadataa marka laakiin dulqaad hadduu qofku dulqaad u la yimaado dadka marka qof intaad wixii u soo bandhigto uusan ku oranin hadda ma rabana aadan shaqsiyan adigu aadan u qaadanin aad hadda ma rabida aad ka soo qaadid hadda ma u doonayee maybe bari u baahan doonaa ama aad isdhihi kartid hal hays aan leenahay jirta qofkii ku dhahaa no waa next ani hadda ma u rabo laakiin hadhowto ayuu doonayaa dad badan aad heli doonto hadhowto fursadan qaaliga ka faa'iideysanaya marka caqabado badan way leedahay sidoo kale mararka qaarkood maya kaliya laguma oranayo waxaa laga yaabaa maadaama qof dadku say u badan Soomaalida online aysan fahamsanayn inayba adiga kaaga digaan ku dhahan ama lagu dhacaa meeshan ama lagu dhacaa waayo waxaa jira kambaniyo kale online ah oo habab kaleeto oo habka anagu aan uga shaqaysanaa aan looga shaqaysanin oo lacag lagu darsado la yiraahdo lacagaha ka ku shaqeynaya anagu waan ka duwanahay marka dadka ma kala yaqaanaan difference-ga waxa farqa u kala dhaxeeya marka dadku siday u badan yihiin ama saaxiibada ama ehelku waxay ku leeyihiin ka joog meeshan yaa lagu dhicin bal inay ayagu ku support gareeyaan iska daayay marka caqabadu waa badan yihiin marka laakiin caqabadahaas oo dhan waxaad uga bixi kartaa fursadda taala shirkadeena ugu horeysa tababarada marka waa jira caqabado laakiin waxa loo baahan yahay dulqaad iyo dadaal sahra ma noo sheegi kartaa sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo fursadan online-ka waliba kambaniga Oblas Global qofka doonaya inuu ku soo biiro ama xog ka ogaado maxaad u sheegi lahayd ما شاء الله waa fursad qaali waxaan ku oran lahaa Soomaalidu waxay tiraahdaa fursadu waa mara garan weyda iyo mara gaari weydid istiqaarayso oo ka faa'iideyso fursadan qaaliga ah waayo adduunkii baaba hadda online isugu biyo shubtay mar dhow khubarada ku takhasusay dhinaca maalka ama dhaqaalaha waxay hadda ay cabirayaan in adduunku isugu biyo shuban doono online oo la waayi doonaba shaqo intaad u kala hado aad tagto marka fursadda qaaliga hadda idin agtaala waxaan leeyahay ka faa'iideysta waayo walaalo badan oo Soomaali ah oo gacmo furan iyo qalbi furan idinku soo dhaweynaya ayaa idinka ka horeeya marka istiqaaraysaan u dhahnaa dadka maadaama aanu islaam nahay hana ka labaynina waayo albaabku marba ku furan yahay marna wuu xirmaa iska xirnaa idin leeyahay
hal istiqaarista hana la soo galo waa laga faa'iideysto. Sahra, maxaa kuu qorshaysan mustaqbalka dhow? maasha allah dhinaca haddii shirkadeenaan eego waxyaabo badan ayaa iga qorshaysan mustaqbalka dhow haddii ilaahay idmo inaan heerar badan ka gaaro haddii ilaahay idmo mustaqbalka fogna Soomaali maxamed meel kastoo joogto inay ka gaaraan dhaqaale waliba ay uga maarmaan inay cid u shaqeeyaan haddii ilaahay idmo marka meel kastoo Soomaali joogto inaan codkaygu gaaro ayaan rajaynayaa dhaqaale dhaxalgal ah inaan ka sameeyo shirkadda tan haddii ilaahay idmo oon uga maarmo aniga kaliya maahe macal awlaadeydii inta aan ba macnihii family bay ah iyo Soomaali maxamedba ayaan ka rajaynayaa inaan ka sameeyo su'aasha haddana mar labaad ku noqdo waxaa jira wax la yiraahdo residual income dhaqaalaha dhaxalka leh ee shirkadeennu ay laga helo taas inaan hubiyaan waa xaqiijiyo siiba dadkeena qurbaha jooga annaga caruurtu markii ay wax baranayaan ilaa dugsiga sare ee secondary loo yaqaano waa bilaash weeyaan free weeyaan laakiin waxa ka dambeeyo dhan free ma aha jaamacadda marka dhaqaalaha halkaan aan ka abuuro ayaa hamigaygu haddii ilaahay idmo in aan ayaga ay jaamacada uga baxaan haddii ilaahay idmo qurbana aan uga maarmo aan wadamada islaamka meeshaan doono aan ka dego anigoo aan shaqaba u qallihin laakiin dhaqaalaha halkaan iiga socda isku dabaraya insha allah. waxaan ogahay tiimkaagu inuu aad u ballaaran yahay sidoo kalena muddo 2 sano ay dhammaad hadeer kugu tahay inaad ku jirtid kambaniga Oblas Global tiimkaagu waa meeqa intee wadan ayay kala joogaan? maasha allah su'aal aad u wanaagsan waxa weeyaan maalinkan kow aan kambaniga bilaabay isma aan lahayn intaas uu gaarayaa waliba muddo kooban oo 2 sano aad ku gaaraysaa waa rajaynayaa inay meelo badan u sii gaaro laakiin 2 sano kaliya aad ku gaaraysaa isma aan lahayn anigu hadda wuxuu joogaa tiimkaygu 9 wadan ayay kala joogaan 50 qof ayay marayaan inkastoo aan 2 usbuuc u dambeysay hadda aanan tira koobin oo aanan fiirinin marka aad buu u ballaartay sababtaan u iri 2 sano gudahoodna waxa weeyaan markii hore maadaama online waxba aan ka fahamsanayn waxaan qabsaday ilaa 5 sano guulihii aan iri waa gaarayaa 2 sano ayaan in badan ku gaaray marka alxamdulillah dad iga dadaal badanna waa jiraan laakiin anigoo haddana dadaalhayay intii tabartaya laakiin meelo badan baan gaaray maasha allah codkayga gaar waan ku faraxsanahay in intaasoo macnihii wadan walaalaha jooga waxay ka dhigan tahay anigana intaasoo suuq inuu iga furan yahay 9 wadan aad baan marka ugu farxayaa in walaalo badan aan dhinaca caafimaadka iyo dhinaca dhaqaalaha anigu aan sabab ugu noqday in macnihii ay iyaguna ay horumar ka gaaraan anigana uu gaaro ganacsigaygu intaasoo wadan meelo ka badanna waan rajaynayaa insha allah 200 oo wadan oo shirkadu gaarsiisay ayaan doonayaa aniguna inuu gaaro haddii ilaahay codkaygu insha allah eebba ku rumeeyay dadaalka waan la socdaa khaatina waan ka ahay dadaalada faraha badan aad ku jirtid runtiina guulaha faraha badan aad gaarayso maalinba maanta ku sii xigta insha allah qofka doonaya inuu Sahra la soo xiriiro halkee ka heli karaa? maasha allah haa waa jiraan facebookayga oo kaleeto hadhowto haddii aad linkayga maaqayna soo dhigi kartid waa jiraa website-yo baa jira anigu 3 website baan dukaanka ku leeyahay shirkadeena oo keligay macnihii waxaan istiri isku koobine markaan anigu kow aan suuq ka furtay 2 cunug oo dhalan suuq baan uga furay website-yadaasna waan leeyahay 3 website waxaa ka mid ah opens.com/maryamashop kaas ayaa waxaa dhan aad ka daalacan kartaa aflax shop ayaa jira oo instagramkayga ah facebookayga aan ka aflax shop 1 inuu ahaa baan jeclahay marka waa Sahra Xuseen hadaaba gelisaanba iyo Oblas Global inaan soo baxay ayaan jeclahay. ugu dambeyn waxay tahay talada ama fariinta aad la wadaagi lahayd dadkaaga Soomaaliyeed maadaama fursaddan ay tahay fursad aad u qaaliya runtiina dad badan anfici doonta haddii ay ka faa'iideystaan. masha allah aad baa u mahadsantahay walaashay Maariyo horta adiga waa kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee bulshada ugu taagan tahay oo ugu soo tabinaysid horumarka adduunka ka jira bulshada Soomaaliyeed waxaan oran lahaa haba yaraatee ha ka labaynina markii ay fursad ku soo haleesho haddaad isla markaada ka faa'iideysanin fursaddu way ku dhaafi kartaa ha lagu soo dhiirado online inta badan waa lagu jiraa marka waqtiga aad ku dhumanaysaan online-ka dhaqaale uga sameeya ninkii facebooka sameeyay markii horeysay wuxuu u sameeyay in dhaqaale laga sameeyo markaan anigu arka ajaanibta habkay uga sameynayaan
aad baan u jeclaa dadkeena bulshadeena Soomaaliyeed inta badan khadka isaga jira inay tabac u bedelaan marka waxa la tabcado online kana laga tabcado shirkadeena qaaligaana ha la soo baaro maariya hadda dib ugu noqdo hadii ilaahay idmo information ko dhan iyo khabarko dhan waad ku soo heli kartaan marka ka laba labaynina idin leeyahay istikhaaraysta fursaddan ka faa'iideysta